halkaan nala socotaan warbaahinta wararka ee Wadani Media barnaamijka waxaan isgaarka aan ku wareysan doonaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya wasiir ku soo dhawow warbaahinta wararka ee Wadani Media waa mahadsantahay waan dhawahay aad aan ugu mahadcelinaa telefishinka Wadani Media gaar ahaan Sheekh Cabdiraxmaan wareysiga anaga ka qaadayso wasiir waxaad timi Puntland waxa uu timi safar shaqo adoo waliba adiyo wasaaradihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka waxaad ku soo maleegteen inaan saxisaan hindisa sharciyeedka ganacsiga oo aad waliba maanta soo gabagabayseen maxaad si leedahay munaafacaad ama muhiim u yahay dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan wasaaradda adigu aad mas'uulka uga tahay wasaaradda ganacsiga waad mahadsantahay waa su'aal muhiim ah runtii hindisa sharciyeedka shirkadaha maanta wada tashigiisii aan ku soo guunaanay magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland ee Garowe waa heshiis aad muhiim u ah ganacsiga Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay heshiisyada ama muxuu ahaa sharciyada ayaan leeyahay kuwa Soomaaliyeed kuwa muhiimsan wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay horumarinta dhaqaalaha kobcinta wax soo saarka wuxuu dhiirigelinayaa maalgashiga wuxuu sahlayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaaliyeed guud ahaan inay suuqyada caalamiga ah inay ganacsigu u gaaro si fudud runtii wuxuu fududeynayaa ama qaabaynayaa dhismaha diiwaangelinta iyo maamulka shirkadaha runtii waa sharci aad muhiimadda u soo leh waa sharci muddo dheer ay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo shaqeynaysay wuxuu soo maray marxalad kala duwan wuxuu soo maray wada tashiyo aad u dheer waxaa ka soo shaqeeyay sharci yaqaano wadani ah runtii waxaa la marsiiyay golaha wasiirada sanad ka hor kadibna waxaa loo gudbiyay aqalka baarlamaanka oo isaguna dood dheer ka yeeshay kadibna waxaa loo gudbiyay aqalka sare labadan maalmood waxaan halkan u fadhinay wada tashigii ugu dambeeyay oo aqalka sare ayaa u soo gudbiyay maamul goboleedyada gaar ahaan wasiiradooda ganacsiga iyo warshadaha iyo xubnaha baarlamaanada ka mid ah dowladda federaalka ah maamul goboleedyada ee qaabishan ganacsiga iyo warshadaha marka runtii sharcigaani muhiimad aad u ballaaran ayuu u leeyahay ganacsiga Soomaalida gaar ahaan kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurka dhiirigelinta maalgashiga dibadda iyo kan gudaha intaba marka waa sharci muhiim aad u ah oo runtii wax weyn ka bedeli doona horumarka dhaqaalaha dalka wasiir aad baa mahadsan tahay ganacsatada Soomaaliyeed oo xaqiiqdii oo u noqon doona muhiimad gaar ah u yeelan doono iyaga maxay isleedahay ka faa'iideyaan maadaama haddii sharcigan loo ansixiyo oo isleedahay caqabado hadeer oo ka hortaagan yihiin hadda sidaan sheegay waxay ka faa'iidi karaan wax badan oo maamulkii gudaha ama haday noqon lahayd dadka shirkadaha samaysanaya ama kuwa shirkadaha leh waa sharcigii runtii qaabeynaya sidaan hore u sheegay qaabkay u dhismayaan shirkaduhu qaybaha ay ka kooban yihiin runtii qaabka loo diiwaan gelin karo qaabka muxuu ahaa ay ula macaamilayaan shacabka iyo macaamiisha runtii marka waa sharci ay wax weyn ay ka faa'iidin karaan waxay kaloo ka faa'iidi karaan in Soomaaliya ay ganacsigeedu uu gaaro ama muxuu ahaa ay wadamada muxuu ahaa aan la leenahay muxuu ahaa saaxiibtinimada ama muxuu ahaa xiriirka aan la leenahay ama aan rajeynayno inuu ganacsiguna dhex maro inuu kobco ganacsiga nagala dhaxeeya Soomaaliya iyo wadamada kale maadaama hadda ganacsiga aan la leenahay wadamada kale uu aad u hooseeyo waxaan rajeynaynaa sharcigaanu marka uu hirgalo in runtii wax soo saarka guduhu uu kobci doono
in dalka warshadayn muxuu ahaa laga samayn doono in runtii farqiga hadda u dhaxeeyo waxa aan dhoofinno iyo waxa aan soo dejinno oo aad u kala badan oo annagana wax badan ayna yimaadaan badeecado badan ay dibadda noogu yimaado annaguna wax aad u yar aan dhoofinno in wax iska beddelaan sababtoo ah maalgashi ayaa imaanaya hadday noqon lahayd kuwa gudaha ganacsatadu ay samaynayaan ama hadday noqon lahayd maxaa la dhihi jiray kuwa dibadda wuxuu kaloo sahlayaa in suuqyadii adduunka sida kan ganacsiga adduunka oo loo yiraahdo WTO ama World Trade Organization kan COMESA iyo kan East wadamada bariga Africa East African countries-ka iyo dhammaan kan carabta iyo dhammaantood in suuqyadaas ganacsigii Soomaaliya uu gaaro marka waa sharci aasaas u ah koboca dhaqaalaha Soomaaliya aad u mahadsantahay wasiir ugu dambeyntii waa guntiga gabagabada marayna maxaa ugu baaqaysaa ganacsatada iyo cid kasta ay khusayso heshiiska sharciyeedka cid walba ay khusayso sharcigaani waxaan runtii ugu baaqayaa in maadaama hadda sharciga uu noo soo gabagabay wada tashigii ugu dambeeyey oo alxamdulilaahi laga yaabo in sanadku intuusan dhammaan in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku soo saaro bulletin official ama faafinta rasmiga uu ku soo baxo oo la saxiixo runtii sharcigan inuu dhaqaalaha Soomaaliya uu korinayo waxa weeye waxaan ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo cid walba uu quseeyo in sharcigan sidoo ku hirgeli lahaa iyo sidoo ku shaqayn lahaa gaar ahaan sidoo uga shaqayn lahaa dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada xubnaha ka ah iyo ganacsatada dhammaantood inay u guntadaan sidii sharcigan uu noqon lahaa sharci shaqeeya oo muxuu ahaa dhammaan muxuu ahaa dalka Soomaaliya meel walba oo kamid ah uu ka hirgalo aad u mahadsantahay kasoo ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa ka mahad celinaa wasiir wareysiga khaaska ah siisay